xarunta degmada Shangani oo lagu sameeyay dib u dhis iyo dayactir ayaa waxa xarig ka jaray gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish isagoo xarig jar kadib bogaadiyay howlaha kala duwan ee lagu horumarinayo degmada. Gudoomiye Cumar Filish iyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Banaadir ayaa kormeeray qeybaha kala duwan ee dib u dhiska iyo dayactirka lagu sameeyay, waxa uuna ku dardaarmay in la dardargeliyo adeegyada ay shacabka u baahan yihiin. intaa kadib ayaa xarunta degmada lagu qabtay munaasabad uu maamulka degmada Shangani ku muujinayay horumarada ka jira degmada Shangani iyo wada shaqeynta wanaagsan ee ka dhaxaysa maamulka degmada, laamaha amniga iyo shacabka, iyadoo ay goobta munaasabada ka socotay lagu soo bandhigay suugaan kala duwan oo ka hadlaysa wadaniyada iyo qiimaha ay leedahay. Gudoomiyaha degmada Shangani Aweys Sheekh Maxamed Amiin ayaa ka warbixiyay munaasabadani. gurigan dabaqa ah runtii oo loo dhisay degmada wuxuu ka kooban yahay hoolka kore oo loogu talagalay wacyigelinta iyo madaxshiilka bulshada si loo helo bulsho nadiif ah oo ka duwan bulshooyinka kale ayaa waxay u heshay nasiibkaas degmada Shangani. sidoo kale dabaqa hoose asagana waxaa ka dhisan 3 xafiis oo mid uu hadda qalabaysan yahay, labana ay u dhiman yihiin qalabayn. labadaas u dhiman qalabeyntana waa 2 xafiis oo ay bulshadu insha Allah taala bilaha soo socda aad ka dareemi doontid gobolka Banaadirba in ay ka soo baxaan urur haween oo domestic department-ga la yiraahdo oo soo saara wax soo saarka. Gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Banaadir Marwo Basma Camri Jaketi waxa ay kula dardaarantay shacabka degmada Shangani in ay xoojiyaan bilicda iyo ilaalinta nabadgelyada. laamiyada burbursanaan gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho inuu dayactirayo waa ujeedin. waxaan rabaa bulshada reer Shangani inay ka faa'iideystaan, inay ilaashadaan ayaga iska leh laamiyada, ayaga iska leh bilicdeedii, ayaga iska leh inay horumariyaan. waxaan rajaynayaa insha Allah inaad ka soo dhalaali doontaan, aad qayb ka qaadan doontaan dhismaha degmada iyo gobolka dhan oo ka socdo. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa munaasabada ka sheegay in ay sii socon doonaan mashaariicda kala duwan ee caasimadda lagu horumarinayo. maadaama ay Shangani dhashay degmooyinka ayadan ka bilownay, waxaan ku xijinay degmadii kale oo ay dhashay Xamarweyne, waxaan ku sii wadnaa Xamar Jajab. sidii ay isu dhaleen ayay u kala horeysaa wadada. horumar kasta oo aan u sameynayna degmooyinka gobolka Banaadir sidaasaan sameyn doonaa haddii alla idmo. waxaa kaloo dhagax dhigi doonaa degmooyin kale, wadooyin kale oo dhaca degmooyin kale. reer Shangani isku duubnidiina, dadaalkiina, isbiritkiina iyo dadnimadiina waxaan idinka rabnaa, maadaama wadadii la dhisay oo aad u jeediin oo hadda ay socoto ayna muuqato inay dhammaystirmayso guryaha burbursan oo wadadaas bilicda soo kordhisay dhisan hareeraheeda inaad naga qalisaan oo aad dhistaan la idinka rabo. degmadan waa degmo qadiimi ah sidaan sheegnay, fac weyn ay ku yaaliin goobo badan oo taariikhi ah, ay ku yaaliin dhismooyin badan oo heer qaran ah. waa meeshii la dhihi jiray magaalada hoose, meeshii la dhihi jiray waa rugtii Beysaniga iyo reer magaalka ay isugu imaan jireen. munaasabada kadib ayaa duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Filish waxa uu koob gudoonsiiyay kooxdii ku guuleysatay tartankii loo qabtay waaxaha degmada Shangani. tartankaasi oo lagu maamuusayay Allah u naxariisto gudoomiyihii hore ee degmada Shangani marxuumad Saare Maxamed Amiin. Nuur Saciid Taliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.